howlgalkani ciidamada militariga Soomaaliya ay ka sameeyeen wadooyinka isku xira Balcad iyo Jowhar iyo sidoo kale Jowhar iyo Mahadai ayaa waxaa hogaaminayay abaanduulaha guutada saddexaad ee qaybta 27aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaanle Ismaaciil Kuulow Tuure. howlgalkani ayaa ujeedkiisu ahaa in looga sifeeyo kooxo burcad ah oo shacabka ku dhawaateen jiray wadadaasi ay ku safrayaan, waxaana taliyuhu sheegay in aysan ka hari doonin ilaa iyo kooxahaasi burcad ah oo shacabka ku dhibaateen jira wadooyinkaasi ilaa iyo laga soo cirib tiro. qaar ka mid ah gaadiidleyda wadadaas isticmaali jirtay ayaa si weyn u soo dhoweeyay howlgalkani lagu sifeynayo kooxaha ka qowlaysan jira wadooyinkaasi, waxayna mahad u celiyeen dowladda federaalka Soomaaliya dadaalka ay ugu jirto had iyo jeer in ay shacabka dhibaatada lagu hayo ay ka dulqaado. ciidamada dowladda Soomaaliya oo meed celiya saaka wax isbaarana ma soo qaadin Balcad ilaa iyo Mahadai wax isbaarana ma qaadin aadaan u mahadsanyihiin. xidhaatana maanta isbaaradii oo laga qaaday dowladda Hirshabelle maasha Allah. Balcad ilaa iyo Mahadai wax dhibaatana ma ku arkin, caadiyan oo soo marnay wax oo na dhibaateeyo amba isbaar naga qaadana ma arkin, waan ku faraxsanahay aad oo aad. wixii kale oo dhiman ilaahay idinkiisa waa sugaynaa insha Allah in laga qaado. waxaa maanta ku faraxsanahay wadada isku xiriirisa Balcad ilaa iyo Jowhar inaa wax isbaara laga qaadan. abaanduulaha guutada saddexaad ee qaybta 27aad gaashaanle Ismaaciil Kuulow Tuure ayaa dhankiisa sheegay in aysan marnaba ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed u dulqaadan doonin in shacabka la dhibaateeyo, cid isku daydana ay tilaabo adag ka qaadi doonaan.